asxaabulkahfi waxay ahaayeen dhalinyaro ilaahay dartii diintooda ula baxsaday ka haajiray dhulkii ay joogeen iyagoo galay godkaasoy ku sugnaayeen 309 sano. tiradooda cid dhab u haysa ma jirto, waxaa lagu sheega 3 uu 4 ku yahay aygooda mise 4 uu 5 ku yahay aygooda, ilaa 7 iyo 8ba waa la sheega oo qur-aanka ayaa lagu sheegay. inta badan xilliga ay dhacday qisadani layskuma raacin, waxaa la sheega inay dhacday kadib 200 oo sano dhalashadii nebi ciise calayhi salaam. meesha uu dhaco godka asxaabulkahfi cid si rasmi ah u taqaan ma jirto, balse waxaa lagu qiyaasa oo la sheega 2 meelood oo kala ah. deegaan ku yaal dalka Urdun, dhulka Shaam, deegaan 7 kiiloomitir u jira caasimadda Urdun, laguna magacaabo Kahful Raqiim, waxaana ku taala meel la booqdo oo lagu sheegay in ay tahay godkii ay asxaabulkahfi galeen. meesha kale ee loo malaynayo waa magaalo aad u weyn oo ka mid ah magaalooyinkii uu Roomaanku xukumayay, maantana ka mid ah dhulka Turkiga. asxaabulkahfi markii ay arkeen baadilka iyo shirkiga ay ku sugan yihiin qoomkooda, asxaabulkahfi waxay go'aansadeen in ay ilaahay dartiis ay u baxaan kana fogaadaan shirkiga ay wadaan dadkooda. asxaabulkahfi waxay galeen god. markii ay galeen godkii waxaa ka dhacday mucjiso, taas oo ah in ay hurdeen 309 sannadood. muddadii u dhaxaysayna waxay qoraxdu ka soo baxaysay dhanka midig ee galbeed waxayna u dhacaysay dhanka koonfureed, falaaraha qoraxduna ma soo gaari jirin. intay hurdeen way is-rogrogayeen oo hadba dhinac ayay u seexanayeen si aanay jirkooda wax u gaarin. 309 sannadood kadib ilaahay ayaa dib u soo kiciyey oo hurdadii ayay ka kaceen. asxaabulkahfi ma aysan ogeyn ayagu inta ay hurdeen hurdo dheer ayaana ka muuqatay. waxay isweydiiyeen meeqa sano ayaan halkan hurudnay? jawaabahoodii waxay noqdeen maalin ama maalin barkeed. waxay soo saareen lacagtii ay haysteen oo mid ka mid ah ayaga ayay ka dalbadeen in uu magaalada wax ay cunaan uga soo gado, si dhuumasho ahna ugu soo laabto isaga oon la fahmin. mid iyaga ka mid ah ayaa tuuladii soo aaday, hase ahaatee wuxuu la kulmay wax cajiib ah. magaaladu maba aha magaaladii uu yaqaanay, guryuhuna ma aha guryihii u yaqaanay. sidoo kale waxaa isbeddelay cuntadii iyo lacagtiiba. wuu yabay, wuxana isweydiiyey sidee ayay magaaladii maalin iyo maalin barkeed isu beddeli kartaa. sidoo kale dadkii degganaa tuulada waxay la yaabeen dharka uu xiran yahay ninkan iyo lacagta uu wato. asxaabulkahfi magaaladii ay ka soo tageen waxaa dhintay waa hore boqorkii haystay magaalada, oo waxaa magaalada hadda xukumo boqor wanaagsan, dadkiina waxay noqdeen muuminiin. dadkii waxay la cajabeen dhallinyaradaas intaas oo sano ku jiray god kadibna ka soo baxay iyagoo nool. kadib markii ay cadaatay mucjisada wiilashii asxaabulkahfi, waxay si dhab ah u ogaadeen iyaga iyo dadkii magaalada ku noolaa in uu ilaahay soo noolayn karo dadka dhintay oo aysan waxba la ahayn. wuxuuna ilaahay qisadani ku xusay suuratulkahfi aayadaha aayadda 9 ilaa aayadda 26. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا.